kulankani looga hadlayay sidii waxbarasho loogu heli lahaa naafada ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno matalaya ururada bulshada aqoon-yahano iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Ximan iyo Xeeb gudoomiyaha ururka daryeelka naafada gobolada dhexe Cabdullaahi Cumar Jimcaale iyo xubnihii ka hadlay madasha ayaa ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay in waxbarasho joogto ah loo helo dadka naafada ah. Xafladan midda koowaad ay ku saabsan tahay waxay tahay in dadka naafada ah oo deegaanadan ku nool dhiirigelin waxbarasho loo sameeyo taasoo ka kooban laba qaybood. Labadaas qaybood oo kala ah dadka naafada oo deegaankan ku nool in la soo bandhigo horta in dad waxbarasho kale yihiin, waxbarashadii u baahan yihiin, ayna hadda ka hor fursad inta badan ay soo helayaan wax ku bartaan. Midda labaad dadka walaalaha gudaha iyo banaan inta joogtaba in la tuso baahidaas waxbarashada, qofkii qof ka bixi kara waxbarasho, qofkii koox ka bixi kara, qofkii codsi inta sameeya in waxbarasho iyo iskuul gooniya loo sameeyo. dadka indhuhu ka maqan yihiin aqoontooda maanta waad garanaysaan in badan oo ka mid yihiin numberka ugu dambeeyo oo darajaadka marka la qaadanayo excellent-ga bay qaadanayeen dugsiyada ama jaamacadaha ay qaadanayeen waan ognahay taa waa xibno maqan weeyaan sidoo kale dadka dhagaha maanta waxay marayaan inay jaamacada ka baxaan markii calaamooyinkii iyo astaamihii wax lagu fahamsiinayo banaanka la soo dhigo qofka saawadu damaanad ku sameeyo inuu qof waxbaran naafa ah waxaa la weynayaa in qof naafa oo bilaa waxbarasho u yimaado warbaahin ahaanna waxaan sameyn doonaa hadduu rabbi makaalimkeena nooga aadan in aan baahino kana shaqeyno sidii 2015 inta ka dhiman loo soo afjari lahaa baahida dhinaca waxbarashada ee naafada taasna waa ballan qaadaynaa bahdeena media ama bahda saxaafadda diyaalka ugu weyn waxaan saari doonaa haddii ay raalli ka noqdo sanadka 2015 xal u helidda wax ka qabashada baahida ay qabaan dadka naafada. Bismillahir Rahmanir Rahiim kulankan waxaan warkaa yahay mid aad iyo aad muhiim ah isla markaana ka qiimo badan kulmo badan oo had iyo jeer la qabto waa ilaahay mahadiisa hadii maanta laga hadlayo waxbarashada dadka naafada si sir lagu qaadi lahaa waxaan ognahay duruufo kala duwan oo badan inay xilligan ku heeran yihiin dadka naafada ah. wasiirka arrimaha bulshada maamul goboleedka Ximan iyo Xeeb Cumar Maxamed Diiriye iyo wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Xaaji Xuseen ayaa sheegay in maamulku uu garab taagan yahay sidii waxbarasho loogu heli lahaa dadka naafada. waa dadka adduunka marka la yiraahdo maxaa maskaxda laga shaqeeyo oo hal la dadaalo ugu dadaalka badan qofku haduusan maskaxda iyo qalbiga uusan naafo ka ahayn naafo uu yahay laakiin meesha uu wanaagsan waa qofka hadduu qalbiga marka caafimaad qabo waxaan marka aad u baraarujinaynaa ururkan naafada ah waxaan faraynaa dadka muxsiniinta ah ee samafalayaasha ah ee wanaagsan Ilaahay hantidana siiyay ee Soomaaliyeed inay dhismaha dhulka oo balaaran oo qayb la rabo in lagu xareeyo dadka maxaa la yiraahdaa xagga dhimirka ka hooseeya qayb la rabo in wax lagu baro dadka lixaadoodu ay nusqaansan tahay maxaa la yiraahdaa qaybna la rabo in maxaa la yiraahdaa jimicsigii loogu sameeyo intaba inay ka wada qayb qaataan.